iyo khaasaan weliba magaalada Boorama la yiraahdo caasimadda u ah waxaan ka hadlayaa anu maanta jeelashii maarataanay Boorama oo aad moodo waxaan jirin maanta inay yihiin maxaa yeelay Boorama waxay lahayd horta hal jeel oo ciriiri ayay lahayd halka jeel oo runtii maarataanay dadka aad iyo aad ciriiri u ah oo la maarataanay kii tuuga ahaa iyo khamriga cabaya kii sheekha ahaa iyo kii maartay odaga ahaa meel lagu wada xirayo oo qolal yaryar oo ciriiri la istur saarayo ayaa haddana waxa dhacday in la yidhi jeelkii laftiisii dadkii waa laga faaruqinayaa oo waxa weeyaan waxa loo kala bedelayaa Gabriel iyo maxaa ahaadaanay iyo Baki waxa la yaab leh oo soo xasuustay korkii 81 lagu xiray Boorama nimankii halkan joogay wadaadada isku sheegay ay yiraahdeen diin cusub la yimiday kacaankiina oo markaa isna u biiray lagu xukumay 3 sano oo detention ah ayaa waxa la geeyay Gabriel ilaan jeel ma lahayn halkan qorqor waxaan ku jiray qolalka cadar la yiraahdo kaayada badan leh marka casarkii la cararay Gabriel la geeyay xasuustay waxa weeyaan haddaba nasiib darro magaaladan inta leeg ee maanta magaalooyinka ugu waaweyn Soomaaliland meeshan la yiraahdo kamid ah oo maanta wax jeel loo ogoleyn anu markaan ku galay markaa waxa iga soo baxday in jeelkan laftiisa la iibiyay daaciis wuxuu doonaba ahaade oo dadkan kolka laga kala masaafuriyo la burburinayo nin bacmashtara la siinayo oo ka samaysanaya moolal iyo wax maartay bacmashtara ayaa meeshii ka soo baxday anigu shaaxsanaan markaa qaylo dheer baan qayliyay waan hor joogsaday sidiina weli aan ku hor joogaa waxaan ka doonayaa dadka reer Boorama iyo gobolka Awdal iyo cidii la saaxiibaba waxaan ka doonayaa jeelka waxaan doonayaa inaan dib u dhisno way dhul fara badan oo banaankiisa ah ayaa u banaan dhulka inaan soo wada xidhno oo soo dayrno oo aan ka dhigno muxuu ahaa maarataanay meel ballaaran dibeedna kolkaan inta maarataanay ana banaan aan soo xidhno qaybo jeel oo rag iyo dumar iyo odayaal iyo caruur iyo kala leh aanu kala socono inaan inta maartay maanta la isdul saaran yahay aan dib u habayno oo dib u burburino dib u habayno oo meesha jeel wanaagsan ka dhisna ayaan doonayaa reer Boorama oo meel kasto joogteen iyo gobolka Awdalowba iyo cidina la saaxiibahay markaa wanaagayga jecel saasaan u gudbinayaa maxay tahay sababtu anu canan maayo dowladda Hargeysa joogta maxaa yeelay iyagu wax alla wax eedahay ku leeyihiin ma jirto hal ogaada imikaba maxaa yeelay waxaan ogahay anoo Sheekh Xasan oo indhaha ku arkay lacagtii jeelka weyn ee meesha dareemcaan la yiraahdo bariga Boorama ah ee Amuud waqooyi ka yara ah laga dhisayay 1,350,000 loo maartay dawladdu u soo bixisay ee gobolada kala mid ahayd Boorama ee kii Gabriel la dhisay ee kii Ceergaba la dhisay ee kii Laas Camal la dhisay ee kii Burca la dhisay ee kii Berberaad la dhisay Hargeysa iska badahraay UMBD tundiso waba dabaqay iyo meel lagu raaxaysta maanta jeelkiisa lacagta inta lagu soo bixiyay kolku seeskii maraya lacagtii meel marta la waayay meel alla meel ay marta aad ha u dhageystaan dadka reer Awdal gudiyada dabadba joogay lacagtaan waxaan ogahay inuu nin kale oo madaxda reer Boorama aan ahayn inuu shaqo ku lahayn maxaa ummadda loo eedayni dadkii gobolkan u dhashay baa lacagta cunay ee madaxda ahaa anu hebel kaliya oran maayo madaxdii Boorama waxa samaysay kan kalena iyaga markaa ka daba iibiyay haddana kaan markay ka daba iibiyeen ba waxay ku leeyihiin qaarkood waxaan ku dhisanaa kii qabiyoobay oo adeerkan kii qabiyoobay lacagtiisa xagay martay baan ku hadalka yaanad ku badinina waxa weeye hadda aan waxaan doonayaa $1,000 ugu horeeyo inaan anigu bixiyaan rabaa oo dhagaxa ugu horeeyo shuba anigu
laakiin ummadda waxaan ka doonayaa iyo hay-adaha lacagta naga urursaday dahabshiil ka mid yahay ee somtel ka mid tahay ee telesom ka mid tahay ee amal ka mid tahay ee xawaaladaha kale ee faraha badan inay ka mid yihiin shaabo qolada la biyaha u qaabilsan dhammaantood waxaan ka doonay lacag bixiyaan oo ay markaa jeelka dhisaan horta balkanaan dhisno ka kalena hadhow aan ka daba dhisno markaan kan hore aan haysanno taasaan ugu dardaarmayaa ummadda reer Boorama haddii kale waxay noqon doontaa qof walba ama gabil ilmahaaga qofkaaga inantaada yar la xidha la geeyo ama meesha baki la raade ee 50 kiiloomitir u jirta Boorama bari hal aad ka doondoon lahayd saasa idin damaynaysa haddii kale reer waliba aqal akareysto dadkiisa ku xidho gaar ah u xidho taa halkaasaan ku soo gabagabeynayaa waxa kale oo qodob gaaban ku darayaa ruwaad halkan laga wado meesha airportka Boorama la yiraahdo oo socota hadda ilaa in maartaanay ilaa 20 sano wax ku dhow socota ayaad moodaa inay cajiib tahay airportka Boorama berigi hore meesha seeraha la yiraahdo ku yahaan jiray berigi dawladii hore kaankii waqtigiisii dambana waxa laga baxshay halka imka uu yahay soo dadkii beeraha lahaa ay bixiyeen oo ay ku sharfeen wasiirkii aadan isaaq loo oran jiray la naxariistay dhulkii la bixiyay caynka ahaa diyaaradaha ka soo degi jiray kuwa rakaab kuwa kaargooga kuwa qaadka qaadi jiray wax badan baa ka soo degi jiray kolkii uu soo maartay bilaabay madaxtinimada uu bilaabay ninka la yiraahdo Daahir Rayaale reer Boorama markuu madaxtinimada bilaabay ayaa garoonka wax ka soo degay ugu dambeysay malaha dhowr bilood intuu isagu meesh joogin ayay ku baabaaday meeshaas garoonkii sidii uu ahaa waxa timiday dawladii Siilaan ayaa timiday ninka la yiraahdo ina xaashi ee duulimaad maartay duulista haystay warcad wuxuu ku yiri Boorama male airport umana baahno Hargeysa duleedkooda ay yimaadaan warka saacad oo yaala kuwa kale waa laga dhisi buu Burco Irgaabo maartay yana مثلا laascanood way yeelan karaan laakiin Boorama male haddana iyadoo isaa tahay ayaa waxaad moodaa in ruwaad kale haddana la garab wado sanadkii walba intaan ugu ogahay ilaa wax 10 sano ku dhow sanad walba qandaraas baa lagu soo qaataa la leeyahay sirig baa lagu xidhayaayo dayr baa lagu wareejinayaayo ruwaad dadka loo dhigayo si ugu dambeysay waxay ahayd anigu mar waxa dhacday ay noo keeneen dad America xagga Mareykanka iyo xogaa maartay Jarmalka $4,000 ay noo keeneen lacag isku noqonaysa ilaa 4,500 oo xitaa roller si fiican u marinay dhulku waa dhul adag oo fiican oo diyaaraduhu isku xitaa daamir lagu shibinay ka soo degayaan berigaasan rollerka marinaynay de rajaan qabnay laakiin wixii ka dambeeyay waxa arkaysaa iyadoo la leeyahay waa sirig baa lagu xidhayaa waa la kordhinayaa iyadoo haddana tawarra looga hor dhisaya somtel iyo shirkadaha la midka ah halka ay diyaaraddu ka degaysay ama ay ka kacaysay tawarra laga dhisayo ood moodo ifafaala sheegaya in garoonkani ay dadka tawarka lihi ay laga iibinayo yeelanayaan ifafaalahaas ka muuqata laakiin waxa dadka lagu maawelinaya hadda maalmahan inaga tagay socotay waxaan ku xidhanaa siligo waa la kordhinayaayo bal ciisa la kordhinayaayo dadku ha ka guuraano maxayo dadku haday inta bixiyeen markii hore inta kale waa jawooyin ay leeyihiin waa xaqoodii waa in laga iibsadaa hadii lagu darayo xataa laakiin iyagu waxayba joogaanba dad aad u fiican weeyaan khayr Allah siiye waxay dhan hadii la natuso airport-kaasoo la sameynayo oo ranwaygiisii daamurkii iyo jaayigii iyo maarta cagafidii ku jiraan hadii la natusayo annaga wax walba uga guuran oo ka maarta intii la doona la ballaarin laakiin meel aan ka shaqeysanahay gabigeedu in airport ma noqon doontaaba aan ka shaqeysanahay ya anagu kama maarta lana soo marin karo xaq bayna u leeyihiin hadda dadkiina qurbaha joogay walaalayaal ad wadankiina u soo dirtaan ku soo sadaqaysataan $1,000 $600 $100 xitaa $50 haddaad isku soo ururisaan oo isku soo dartaan
oo dadka gudaha joogana la isabaabulo oo guddi loo sameeyo ka shaqeysa maartay airportka dhiskiisa waxa dhici doonta arintaas garoon caalami isaguna ka soo bixi doona meeshaas lana ballaarin doono intii la doonaba laakiin waxa weeyaan waa in horta dadka la tusaago meeshu inay garoon tahay oon dhisayno oon dhiskeedii bilowno innaga rakaabkeena reer Jabuuti soo xaga baxayay halkay 20 daqiiqo soo socon lahaayeen ayay wax ka soo wargaan dir dhabo ama waxay ka soo wargaan low yacdo oo maartay sida maartay yana xoolaha xiriinta lagu xiray la xafuujisto oo nimankii hodbuure tagay 19 meesha tagay ilaa yoomana hada ay soo gumaysanayaan oo ilmaha yaran naqan $30 laga qaadayo odayga weyn laga qaadayo qofkii buka laga qaadayo miskiin kasta laga qaadayo oo loo naxariisanayn taasina reer Boorama u gaartay waliba aan runtan idin sheegay marka waxa weey kuwa kale dabada ka imanayay hadday ku soo degan aad subaxata iyo Hargeysa iyo markaaba diyaarad boo soo raaci karaan ma Muqdisho hadday ku soo degan marka hadday noqoto meeshan haddaan ka shaqeyno airport caalami ah ka sameyn karnaa xoolana waynu leenahay ilaahayna ina weydiin doona dhulka uu nasiyay maxaad ka qabatay ma noqon doona wariyana reer Boorama gobolka Awdalo gada buurso waxaan dhaahdee waxa ay muuqata in wadankiina burburkiisa loo wakiilay reer badan laftooda loo wakiilay inay burburiyaan ama madaxweyne ku xigeen ha noqdaan ama madaxweyne ha noqdaan ama generaal ha noqdaan ama wasiir ha noqdaan anigu waxaan leeyahay reer Boorama yaga baabinaya anu ma garay marka darajada Boorama burburinta lagu helayo ee lagu dalacayo misaa kalba wixii reer Boorama magaceeda lagu helo baa la cuni anu aan leeyahay odayga gaboobay kolka baan 70 jirka gaarkayga cadaankiisa wadarkaysiin ka tagi maayo kelmad xaqoon arkaya inaan idhaahdo inaad ka tagi maayo waan oranayaa sidaas aad isku gaanaysan aniga nina koobshaa kama rabo nina waan maartaanay waxaan ka doonayaa ma jirto haddaan dawladda ka hadlana dawladda waxaan uga hadlaysaa igu muuqata aniga wax umaan u hadlayaa wabillahi tawfiiq وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وانا لا اركي دونا waxay reer Boorama ay soo celiyaan شعفي عشقي magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal